نحمد ونصلي على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأولا لنا وبرتين قصوين عجيب. وأنت قصوا عن ياهيا منك إلهي كبدبادي إنه بيهو وما شو أما بيهو كدنتو وقصدي كبدي بيهو قرقسي أو بيهو كدمتي وحاجرتي قصة مصر كدعدي كسو نقضي حجك وصعدي مصر أيوة مركب سهرا أيا dadkii hal mar qeyliyeen waxay dhaheen wardoonta war markabku gadooma war markabku waa uu la gadoomi rabaa ninkii wuxuu galay inuu xaaskiisa la hadlo yiri walaali soo carar dadkii waa qeynay markabku gadoomi rabaa biyahan ku dhimanay ayuu waxay tiri wallahi ma baxay anoo xijaabkayga xiran wuxuu ku yiri walaali waqti xijaab la xirtamay soo bax sida maanta anaga caadada ay tahay duu dib dhaco ama dab dhaco ama meel wax soo galaan gabdhaha madax qaawan xijaab lahaan banaanka u yaacaan marka ninkan wuxuu ku hayay gabadha soo bax walaali iidan waxay leedahay ma baxay wallahi anoo xijaabkii si fiican u xiran hadaa ku dhinto anoo xijaabkii kula dagaalama ama xijaabkii xiranay ama cawradii asturay waa sidaan u daca ilaahay cabsidiisii daacadiisa ku dhintay markii xijaabkeeda xiratay way soo baxeen aydi ninkeeda laakiin nasiib wanaag markiiba kamay gaarin biyaha ku yimid markay arkeen biyaha ku yimid gabadha waxay bilaawday inay ninkeeda ku dhagto ay ku tira walaalo raali miiga tahay oo ninkeeda sayd way ku dhagtaa haddana waxay tiri walaalo raali miiga tahay haddana mar saddexaad ay ku tiri walaalo raali miiga tahay waxaan rabaa inaan maqlo hadalkaaga inaan raaliga tahay in kale markaas oo soo ooynayo wuxuu yiri wallahi raali baan ka ahay ana wanaageeda gabadhaasi si diinteeda ugu dhagantay iimaankeeda xijaabkeeda asagana ku dadaalay inuu badbaadi la yahay gabadhii markiiba intaas maqashay aad bay u farxday markii waxay bilaawday inay shahaadada bilaawday shahadan la ilaaha illa allah shahadan muhammad rasuulullah way ku celcelisay ilaa ay kaga dhimatay ku dhimatay markaas ninkeeda aad u ooyay markaas wuxuu yiri waxaan ilaahay ka rajeynayaa subhanahu wa ta'ala inaan ku kulano ilaahay jannooyinkiisa jannaatu naciim ilaahay jannooyinkiisa wanaagsan inaan ku kulano ayaan rajeynayaa walaalayaal fiiriya gabadhaas iyadoo xaj ka soo noqotay oo markab saaran ayaa musiibada imtixaanka ku bilowday sababtay u dhimatay waxaa kamid ah ayadoo intaas ku xarbinayso inay xijaabkeeda xirato is asturto cawradeeda asturto intay ku dadaalayso ayaa biyaha ku yimid meeshaas ku qarqisay ku dhimatay ku maashooday bal fiiriyo marka walaalayaal oo ninkeedan ku dadaalay inuu badbaadiyo laakiin uu badbaadi waayay soo annagana maanta waa aragtay walaalayaal gabdhaheena hadduu guriga dab yar ka dhaco ama korontada shoog ka dhaco ama maaragtay doon ilaahay naguma keenay ama wax la gadoomaan dadka inta badan maaragtay xijaabka lama fiiriyo asturka lama fiiriyo bal waxay sameynaa maanta gabdhaha badaha inay aadaan iyo meelaha maaragtay swimming pool-yada ay wiilasha raacaan saaxiibadood ama dariska ay badi galaysaa wiilasha ka buuxan dumarkana waa aragtay kulligood waa wada cooro madax iyo tin iyo lug dharkii baata ay wadatay biyaha galaysaa jirkeedana si dabadeed wax kasta la arkayaa marka walaalayaal ilaahay ka cabsano si khaasatan gabdhaha ay ilaahay ka cabsano maaragtay iimaanku waa wax weyn qofka iimaankiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka baryo inuu ilaahay iimaankiisa ku dadaalo soo helay aakhiradiisa iyo cibaadadiisa ku dadaalo oo ilaahay ka cabsano gabdhaha aan is asturno xaal kasto kugu yimaado oo masiibo ama imtixaan waxaa la rabaa qofka inuu markas uu ka tagin amarka ilaahay xijaabka uu ka tagin asturka uu ka tagin oo ilaahay subhanahu wa ta'ala u tala saarto anoo qofku markasta uu dhimanayo waqtigiisa ma dhaafay laakiin ha dhiman adoo ilaahay ku careysan ha dhiman adoo ilaahay subhanahu wa ta'ala macsidiisa dambi ku jiro bal nafta ka baxdo adigoo amarka ilaahay ku jiro adoo amarka ilaahay ku taagan adoo ilaahay raali ka yahay markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku siinay jannadiisa raali ahaanshaha helaysa ninkaagana raali ka noqonaya ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqonaya qof kasta ka helay risaalada ha gaarsiiyo walaalihiis asagana ajir buu ka helayaa insha Allah jazakumullahu khayr.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.